kusoo dhawow casharo accounti ah oo ku bixi doona luqadda Soomaaliga ood kala socon doontid channelkayga Arman Accounting. Fadlan like ta saar, subscribe na dheh si aad ula socotid casharada dambe. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo xidho stock-ga inoo yaala. Closing inventory-ga waxaa loo sameeyaa ama loo adeegsadaa sida evaluation loogu sameyn lahaa stock-ga inventory-ga wixii laga iibsaday iyo waxa inoo yaala imika si loo kala garto. Sales revenue-geeni aynu soo xareynay iyo purchase expenses-kii aynu galnay iyada oo journal garayn doono inventory-ga inta soo hadhay oo noqonaysa inventory on hand oo kala geli doonana cost-ki oo expenses-ka ah oo geli doona income statement-ka iyo inventory-ga oo geli doona balance sheet-ka. Aynu dib ugu noqono example-kii George ee inoo soo socday transaction-kii dhacay 2 bishii afraad wuxuu soo iibsaday purchase uu deyn ahaan ku soo qaatay 5,000. alaab ayaa u soo kordhay stock-ga imika mar kasta oo purchase dhaco inventory-ga wuu kordhayaa. Transaction-ka ku xiga wuxuu dhacay 3 April. Sales ayaa dhacay. Saleskaas oo la iibiyey alaabta la soo iibiyey qayb ka mid ah oo u dhiganta 2,500 oo laga jarayo purchase-kii hore. Transaction-ka ku xiga wuxuu dhacay 6 April. waxaa dhacay sales qayb ka mid ah qaybtii soo hadhay oo u dhiganta 2,500. halkaa imika markaynu marayno inventory hore inoo yaala ma jiro, sidaas ayuu ku dhammaaday inventory-gii hore. 7 April waxaynu soo iibsanay alaab qiimaheedu yahay 7,000 oo inugu darsantay inventory-gii inaga dhammaaday. waxaa closing la sameeyey 14 April oo closing inventory-gu noqday 7,000. sidaas ayay inventory-gii inagu close garaysamay. 7,000 ee inventory ahaan inagu soo hadhay waxay noqon doontaa closing inventory-geenaas opening inventory-ga next period-ka dambe. si loo ogaado inventory-ga soo hadhay waxaynu samayn doonaa journal entry. waxaynu haysanaa inventory oo asset keena ah oo inoo kordhinaysa asset-kii ayaa kordhay 7,000. wuxuu qaadanayaa debit. sidoo kale qaybteena kale waxay qaadan doontaa credit oo uu hoos u dhacay cost of sales-keenii oo inoola mid ahaa expenses
oo noqonaya 7,000. Evaluation-kan ay soo sameynay waxaa loola jeedaa alaabtii aynu soo iibsanay ee ahayd mar aynu soo iibsano cost 5,000 gaadhaya iyo markii labaad oo aynu soo iibsanay cost gaadhaya 7,000. haddii la isku geeyo 5,000 iyo 7,000 waa 12,000. waxaa sales aynu iibinayna waxay noqonaysaa 5,000. marka haddii laga jaro 12,000 5,000 waxay noo soo harayaa 7,000. 7,000 waa in aynu ku cadeyno journal entry-geena si looga jaro income statement-ka cost-ka amba expenses-ka ku baxay oo ay waragelayso 12,000 ee purchase-ka ahaa in laga jaro 7,000 ee alaab ahaanta aynu ku hayno si ay inoogu soo hadho income statement dhammaystiran oo sax. si income statement-keena inoo soo bixi doona gross profit-keenu u noqdo mid sax ah oo aanay ku dhex jirin inventory aan la iibinin. sidaa darteed waa inaynu ka saarnaa expenses-keena 7,000. debit-kana inventory-ga asset-keena inagu jira waa in uu balance sheet-ka ka dhex muuqdaa 7,000 oo inventory ah oo inoogu kordhaa dhinaca asset-keena. xagga credit-kana cost of sales uu ka go'i doono income statement-keena qaybta expenses-ka. halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday casharkii closing inventory-gii sida inventory-ga loo soo close gareeyo oo evaluation-na lagu sameeyo. casharkan xiga waxaanu kusoo qaadan doonaa sida income statement-ka loo diyaariyo. insha allah la socod wanaagsan.